dadka badh baa haddaad aragta laga weecdaa sharkiisa, dadka badhna waa lagu soo hirtaa meeshuu joogo. qofka mu'minka ah nebigu wuxuu ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam inuu yahay qofkaasi lagu soo hirto. waxaanu sheegay qofka dadka sharkiisa iyo dhibtiisa dadku ay uga cararaan inaanu khayr lahayn. dabeetana nebigu wuxuu leeyay calayhi salaatu wasalaam wakhayru nnaasi anfacuhum linnaas, dadka waxaa u khayr badan ka u nafciga badan ka u waxtar badan, dadka waxaa u khayr badan ka u waxtar badan. ee nebiga calayhi salaatu wasalaam baa mar kale isagoo jooga waxaa la keenay, la sheegay nin dibqallooc qaniinay. markii dibqalloocu qaniinay ayaa nin yimo wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisii oo naga qoladayadu waxbaanu tufnaaye, dadkan dibqallooca wax lagu tufaanu naqaanaa ku akrinaaye, ma ku akriyaa? bal soo bandhig buu yidhi, waxaanad akridaan muxuu yahay? wixii buu sheegay. dabeetana wuxuu nebigu yidhi ba'si kuma jiro tanaad sheegtay, ee man istataaca minkum an yanfaca akhaa falyafcal. ciddii awoodda walaalkii inuu wax taro ha yeela buu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam, oo ha taro. xadiidka saddexaad aan tilmaamaynaa wuxuu yahay nabiga calayhi salaatu wasalaam nin baa u yimi oo wuxuu ku yidhi yaa rasuula allahi ayu nnaasi axabu ila allah wa ayu alacmaali axabu ila allah. dadka yaa alla u jecel yahay, acmaashase maxaa ilaahay u jecel yahay? nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkanu xasan ligayri uu sheekh alalbani ku sheegayo, wuxuu nabigu yihi axabu nnaasi ila allahi anfacuhum linnaas. dadka ilaahay wuxuu ugu jecel yahay kuwa dadka ugu waxtar badan. acmaashana waxa loogu jecel yahay buu nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam sururun tudkhiluhu calaa muslim, qof muslima aad farxad geliso, ka farxisid, takshif canhu kurba, dhib haysato aad ka faydid, aw taqdi canhu daynan, ama dayn lagu leeyo aad ka bixisid, aw tatruda canhu juucan, ama gaajo aad ka quudisid. wala an amshiya maca akhin fii xaajatin